bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si walba ay noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka qisooyinka jaceylka aad ugu barateen barta youtube-kaanu ku leenahay ee barbaarta dhalinta alaaba qisooyinka jaceylka barnaamijka la magac baxay waxaa soo diyaariyay islamarkaan ila socodsiiyey anigoo ah cabdifitaax cali jaamacadda kacadda xajadiid dhanka farsamada garla-aaneen mahad qaali ee mid sare waa ka gaadhay waxaa ii farsameynay intuu barnaamijka hawada ku jiro maxamed amiin laaska waa mar kale iyo barnaamijkeena qisooyinka jaceylka aad ugu barateen barta youtube-kaanu ku leenahay ee barbaarta dhalinta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya sadani waxaan ka soo xignay Maxamed Jaceylo oo ah shakhsiga ay ku dhacday xisadani wala uu naga codsaday inaanan qaar ka tirsan aanan u isticmaalin aalada saxaafadda balse qisadii oo kooban ayaa u dhaceysay sida Samara waa gabar ku nool mid ka mid ah degmooyinka ku yaala gobolka Banaadir ee caasimada dalka Soomaaliya waxay maalin maalmaha ka mid ah soo gaartay iskuul private ah si ay wax ugu barato markii ay soo gaartay xarunta iskuulka private-ka ah ayaa mar qura waxa indhaha ku dhuftay wiilka lagu magacaabo Maxamed Jaceylo oo xilligaasi iskuulka ka ahaa bare markii uu arkay kadib Maxamed Jaceylo gabadha lagu magacaabo Samara way qancisay si dhan kastaba ha aatee muuqaalkeeda iyo quruxdeeda oo Ilaahay ku baneestay qurux badan idaaye qiimo weyn idaaye qalbiguna ku taaya qurux badan idaaye qiimo weyn idaaye qofkula midajira uu bilaabay Maxamed Jaceylo inuu gabadhaasi barto nasiib wanaag waa laga ogolaaday balse barashada xilligaasi Maxamed Jaceylo ma aysan ahayn mid dadka ka wada dhaxaysa balse waxay ahayd barashada dadban oo u baahnaa inuu marun ka agdhawaado si uu ugu sheegto xanuunkan aadka u baaxadda weyn ee markaasi soo taabtay isla markaana jaceylka uu qabo uu ugu sheegto isagoo ugu hoos gambanaya barashadii uu bartay markii in muddo lagu wada socdo walaaltinimo ayaa mar qura waxa uu bilaabay wiilka lagu magacaabo Maxamed Jaceylo inuu u sheegto xanuunka uu qaaday gabadha lagu magacaabo Samara kaasoo ahaa jaceyl iyo weliba leebkii ka dhex baxay oo ahaa warankii jaceylka oo aragtidii koowaad uu arko gabadha lagu magacaabo Samara oo uu jeclaaday balse adduunyadu waa laba gelin nasiib xumo uma aysan suurtagelin in laga aqbalo codsigii uu gudbistay kaasoo ahaa inuu jaceyl u qaaday gabadhaasi balse markii uu sheegtay kadib ayaa gabadhii waxa ay ku qancisay in ay leedahay xiriir jaceyl oo ka soo horeeyay isla markaana aynan qiyaanin karin sidoo kale waxay ka codsatay inuu sii wado walaaltinimadii ka dhaxaysay labadooda waa Samara iyo wiilka lagu magacaabo Maxamed Jaceylo kana wanaagsan tahay xiriirka uu sheegayo walaaltinimada waagii ayaa u bariyay wiilka lagu magacaabo Maxamed Jaceylo oo waxa uu sameeyay ayuu garan waayay Maxamed Jaceylo kama uusan waalin oo wuxuu ahaa wiil aad u karti badan wax uuna ogolaaday inuu kula socdo walaaltinimada markii in muddo ay ka soo wareegtay oo lagu wada socdo walaaltinimo ayaa dhowr bilood kadib Samara waxa ay u sheegtay wiilka lagu magacaabo Maxamed Jaceylo in ay doonayso in ay guursato isla markaana ay hanatay jaceylkii ay markii hore u sheegtay inay lahayd inay ka codsatay inuu kala soo qayb galo xafladda arooskeeda Maxamed Jaceylo oo aadna marna aad ugu faraxsan ayaa waxa uu gaaray goobtii ka socotay xafladda arooska Samara waxa uu ka soo jeediyay maanse aad u xanuun badan oo ka wada ilmeysiisay dadkii ka soo qayb galay xafladdaasi waxaana ka mid ahaa ereydii xanuunka badnaa haddii hal iyo laba aan kaga soo qaadano Safiyay Samiray Saxarlaayi ku noolo ereyada iyo ereyo kale oo ka sii xanuun badan ayaa ka mid ah
halkaasi ka soo jeediyey wiilka lagu magacaabo maxamed jacaylow oo ahaa nin aad u karti badan. amigii naftaydaba hadal waxa ku sabi jiray waad heli yartaa tiban halka dooqu kugu daray amigii naftaydaba hadal waxa ku sabi jiray waad heli yartaa tiban halka dooqu kugu daray aniga hadraayo hawa been raace wasumuuday ruuxe arruuxe raaxoy mid kale hooy kula hooda joogta aniga hadraayo hawa been raace wasumuuday ruuxe arruuxe raaxoy mid kale hooy kula hooda joogta noloshaadii hanato hantido nasiibka annakaygii la hadhay hagarlii ku noolow hagarlii ku noolow noloshaadii hanato hantido nasiibka annakaygii la hadhay hagarlii ku noolow hagarlii ku noolow qisadani ayaa qiso dhab ah oo ka dhacda caasimadda waddanka Soomaaliya Muqdisho. guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qisadii jacaylka xanuunka badneed ee la magac baxday jacaylkii ku bilowday aragtidii kuwaad kuna dhammaaday walaaltinimo. halka aad nagala socotaan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee barbaarka dhalinta. barnaamijku waxa uu soo saaray la socodsiinaya anigoo Cabdifataax Cali Jaamac Cabdika Cabdixajadiin dhanka farsamaha garlaanad mahad qaaliya mid sarba ka gaadhay waa Maxamed Amiin Cabdiraxmaan Cabdullaahi Laaska. inta dib u kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.